Cabdiraxmaan Ilkacase oo ah kabtanka kooxda Goodir iyo sidoo kale kabtanka xulka gobolka Hawd dhawaan dhaawac ayaa ka soo gaaray tababarkii kooxda Goodir kulankii ay la ciyaarayeen shalay dawladda hoose maalintii ka horeysay balse kooxda oo leh kulamo adag toddobaadadani iyadoo la ciyaaraysa dawladda hoose FA Cup-ka horyaalkana la ciyaari doonta gaashaan oo ay kala sareeyaan hal dhibic iyo sidoo kale kooxda maaliyadda oo ugu xigay iyaduna kulanka ku xiga Cabdiraxmaan wuxuu ka mid yahay halbowlayaasha kooxda Goodir kulankan uu maqnaa iyo kulamada dambe uu maqnaan doono intaba waxaynu ku ogaan doonaa dhakhtarka oo kula jira xaaladiisa caafimaadna halkan inuu kula tacaalayo بسم الله الرحمن الرحيم حقن داد سبورتس انجري سنتر waxaa daraad nagu soo booqday Cabdiraxmaan Ilkacase oo ah ciyaartooy kamid ah ciyaartooyda Soomaaliland oo dhaawac ka soo gaaray jilibka Cabdiraxmaan waxa dhaawac ku soo gaaray jilibka bidix halka markii noo keenay waxaan u qabanay qaybta emergency-ga ahayd waxaan kala dagaalanay inuu barar yeesho maxay haytooy in uu dhaawacuna ku sii fido marka inta wixii ka dambeysay maxay haytooy waxaan u qabanay laba qaybood daaweyn waxaan loo sameeyay wixii daaweynta emergency-ga ahayd wuxuu wax ka qabaa jilibka maxay haytay midig waan eegnay seedihiisu way caafimaad qabaan seedahan gudaha iyo kuwan dabaduba jug waxa soo gaadhay dhaawac ah oo culus xagga gudaha wuxuu u baahan yahay in lagu eego MRI scan-kiina resultigiisa hadda inoo soo baxaya Cabdiraxmaan waa ciyaartooy markiisa hore ka shaqeeyay injidiskiisa iyo badqabkiisa caafimaad saadaradeed murqihiisa seedihiisa wixii soo dhan way dhisnaayeen dhaawac soo gaaray si kasta uu weynaa haddana seedihiisa iyo murqihiisa ka celiyay inuu inta garanaysa dhaawac ku sii gaaro ku sii fido iminkana waxa weeye seedaha halista ee qofku marka dhaawac ka soo gaaro uu ciyaaraha uga fadhiisto weli waxba kamay gaarin uu ka ladan yahay ciyaarihiisana dhawaan uu ku soo noqonaya insha Allah iminka wuxuu ku jiraa phase-kii hore emergency treatment-ga ama daaweynta wuxuu geli doonaa phase kale ku xigo ah duugis iyo maxay ahayd murqaal loo jimicsiiyo oo rehabilitation phase-kiya kadib insha Allah ciyaarihii si dhakhsa ay dib ugu soo noqonaya hadii alla dhaho waxaan kula talin lahaa ciyaartooy kastaaba inuu maxay haytooy marka laga tago ciyaaraha uu ciyaarayo inuu laba arrimood uu ka shaqeeyo ku dadaalo waa koobaad inuu sameeyo inuu nafaqada jirkiisa oo aad u ilaaliyo cuntooyin isku dheeli tiran uu cuno talabaadna waa inuu physically uu ciyaartooygii u noqdo strong murqihiisa dhiso seedihiisa dhiso si haddii uu dhaawacyada yar fudud aynan wax badan u yeelin kabtan Cabdiraxmaan Xasan Warsame waxaad ka mid tahay ciyaartooyda ugu faca weyn leh kubadda cagta iminka ugu magaca weyn leh taariikh badan baad ka samaysay koobo badan baad kula guuleysatay kooxda intaad hogaaminaysay waxay ku jirtaa kooxdu marxalad adag waqtigan dhaawac baa ku soo gaaray kulankii shalay toole waxaad ku jirtay dadkii la filayay inay garoonka ka soo muuqdaan taageerayaashu dhaawacan lama kamay warhaynin bal dhaawacaagan aniga iyo daawadayaasha nooga warbixi sidii uu ku soo gaaray dhaawacan iminka aad la tacaalaysid بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والله dhaawacan ay soo gaaray tababarkii soo gaaray aniga tababar sameeyay soo gaaray marka ciyaartay kale ciyaartay ay soo siibtay si kama oo aan ogaanahay aniguna waan ka istaagay miisaankayga ka qabtay marka cagtaas miisaankiisa iyo dhacay raajilka waxa ay wareegay markii wareegay waxa ay dhaawac waxa aad u halis badan oo waqtiga uu muuday waxa gulbidii wareegtay waxa weeyaan xaggan oo dhan ay danaanaatay runtii markaan saas ku arkay aadan waxa aan ugu wareeray wax mooyaan halka ka jabanahay alxamdulillah rabbil caalamiin sidii may noqon doctorkana wuxuu sheegay in waxa weeyaan dhaawacay sida ay gaareen iyo waxa dhibaatooyin waxa ka badan Cabdiraxmaan kooxda intii iminka aad hogaaminaysay labadii koob ee ugu horeeyay wadanka laga hirgeliyay nasiibadu yeelatay inaad gacantaada ku qaadid waa championkii iyo koobkii horyaalka waqtigan kooxdu kaalin fiican bay ku jirtaa 7 ciyaarood baa kooxda u haray kooxdaada shalay toole iyo kulamada dambe maxaad rajaynaysaan horyaalka inta lagu guda jiro wallahi horta kooxdaydu
waxay ku fiican tahay oo aan dhaawacay ururin kooxdu waxa weeyaan marka laga reebo macalinka waxa kooxdu boos kasta oo waxa ciyaartoygu ka muuqday ciyaartoy kasta maqan aniga iyo ciyaartoyda kale waa koox waxa weeyaan oo koox buuxisa waxa weeyaan shaqada waxa weeyaan qofka kooxda waxaan isleeyahay hal qof aan ka maarmeyn waa macalinka waxa weeyaan iyo waxa weeyaan macalin ku-xigeenka iyo waxa weeyaan iyo maamul kale waxa weeyaan gudoomiyaha wallaahi horta wax warwareeg ma hayo waxa weeyaan dee dhaawacayna waxa weeyaan inuu dee ka fududiyay sidii boqolkiiba boqol baa laga sheegay dee tiimkaygiina waxa weeyaan si shalayba ka muuqatay anigu kama maqnayna waxa weeyaan cabdiwujuud baa ka maqnaa filxiriin baa ka maqnaa laacabo fiican oo kale ka maqnaa taa waxay ku cadeeyeen in dee tiim waxa weeyaan baan gaadhay yahay waxaana daa maanta ciyaartoy iyo laba iyo waxa weeyaan iyo saddex toban dee u baahnay hogaamintaada way mahadisay kooxda intii aad joogtay waxaa la sheegaa inaad tahay qofka isku haya ee lafdhabarta u ah kooxda dhalinyarada inta garoonka lagu jiro iyo inta banaanka la joogo iminka kulan adag baad leedihiin arbacada maxaad kaalinteebaad ka qaadan doontaa wallaahi waxa weeyaan dhalada iminka kaalintayga bannaan waxa weeyaan dee aan tiimkayga waxa weeyaan dhiirigeliyo waxaan tiimkayga dee waxa weeyaan meelaha waxa weeyaan isticmaalo oo barnaamijyo ka isticmaalo inaan waxa weeyaan ku dhiirigelino tiimkaaga intii aad hogaaminaysay si fiican baad hogaamisay wallaahi dad xun lama hogaamin karo waxa weeyaan tiimka aan hogaaminayna runta laga hadlayo waxa ciyaartoyda waxa weeyaan ugu akhlaaq badan leh waxa weeyaan ugu wanaagsan ugu dhaqanka wanaagsan sakariya waa wada socota kubadda cagtooda waxyaabo badan xaalado badan baa dee kooxihii waxa sheekooyin badan oo kooxihii kubadda cagta kooxeeba ka soo baxaya kooxdayda waxaana ka maranta marka inaan hogaamiyo aan guulo la gaadho waxaan taageeri saacado kama tiinay waxaan wanaag u yahay keenay taageerayaal badan bay kooxdu leedahay kulamo adag baad leedihiin toddobaadada soo socda oo saddex kulan adag baa isku xiga kooxda fariintaad la wadaagayso taageerayaasha mar walba kooxda dhiirigeliya iyagana wallaahi waxaan la wadaagayaa waxa weeyaan taageerayaasha kooxda iyo taageerayaasha khaaska waxaa la wadaagayaa waxa weeyaan kooxdan cid waliba cid ka dhaawacanta iyo cid waxa weeyaan ka baxdaba waxa weeyaan dad badan baa waxa weeyaan waqti ku saaraya magaca kooxdan cid kasta ka weyn taageerayaasheeda waxa weeyaan inaan guulaha inta la gaarno waxaan runtii ka dambeeyay loo kala baxsado tiimkan waa tiim taageerayaal wuxuu leeyahay waxa weeyaan qadiimi uu leeyahay taageerayaal wuxuu leeyahay ruuxi uu leeyahay runtii taageerayaal ka quusan saad maanta tiskariyaarkiisii ciyaartii waxa weeyaan maxaa ahaayey dowladda isla ciyaareen shalay runtii waxay muujiyeen inay taageerayaal u bisil yihiin waxa weeyaan ka baag samayn karno sidii caadada ahaydba inaanu soo laabano oo aanu soo kabanana waxaa qayb ka ahaa taageerayaasheeda ugu dambeyntii cabdiraxmaan sanad gudihii kooxdu taariikho badan bay ku guulaysatay laba abaalmarinood oo ciyaartoyga ugu fiicnaa iyo ciyaartoyga horyaalka ugu fiicnaa kii jaamika ugu fiicnaa tababarihii ugu fiicnaa waxaad isku darsateen abaalmarinihii tartamada oo dhan koobabkii oo dhan waa sanad gudihii taasi maxay ka dhigan tahay taariikh ahaan Goodir walaal waxay naga dhigan tahay shaqadaan qabanay shaqada guud baan qabanay waxa weeyaan kolley 12 nin ciyaarayna waxa weeyaan kolley qof ma laga abaalmarinayaa annaga waxa noo sharafa in waxa weeyaan labadii jeer baan laacibkii Soomaaliland helnay laacibkii waxa weeyaan horyaalkii dee Hargeysa aan helnay runtii sharaf weyn oo tahay koobkii Champions League aan raacsanay runtii sharaf weyn oo tahay aniga kartanaana sharaf weyn tahay aniguna guulaysto iyo qof kale guulaysto muhiim aha ciyaartoy kasta waxa weeyaan wuxuu halkaa ku soo gaaray inuu marka hore guush kooxda u dagaalamo kadibna waxa weeyaan anagana la kala doorto annagina waxa weeyaan dad naga mid la doorto runtii farxad iyo sharaf ay tahay imikana insha Allah billahi kariisi silag baan soo doonaa ugu dambeyn goormad garoomada ku soo noqonaysa dhaawacaagan goormad ka soo laabanaysa taageerayaasha iyo guud ahaan kooxdooda iyagu aad ku tabi doonaan horta xilliga ilaahay dhaado doctorkana doctor Axmed oo mahadnaqayo iyo waxa weeyaan isbitaalkiisa daadba waxa weeyaan sida waxa adeeg fiican ay siiyeen runtii waa dhakhtar loo baahnaa iyo doctor loo baahnaa waxa weeyaan guud ahaan dalka muu lahayn waxa weeyaan dhakhtar u gaar ah ciyaartooyda iyo waxa weeyaan dhaawacyada waxa weeyaan ay aad uga cabanayaan runtii adeeg fiican baa la siiyey si fiican baa doctorkii ugu adeegay talooyin fiican buu siiyey dhaawacaygu eegay si waxa weeyaan degan buu eegay dhaawacaygu wuxuu sheegay in
sidii la filayay inaan boqolkiiba boqol waxa weeye aan ka fiicanahay meelihii ugu muhiimsanaa oo ay seedaha saddexda seedoo dhaadheer ay ka mid yihiin inay fiiq qabaan والله aad baan ugu faraxsanahay doctorku wuxuu ii sheegay walow ay baaritaanadayda wax ka haleen oo MRI iga haray laakiin doctorku wuxuu igu wargeliyay inaan sida ugu dhaqsaha badan leh muddo kooban ku soo laabanayo iyaguna si fiican ay shaqeyn doonaan anigu aad baan ugu faraxsanahay in dhaawacaygu aad si hore ugu fiiriyay alxamdulillah